ilaahay wuu isku keeneegayaa wartii la abaarad bal ugu jiran waxaan la ictiraafka kor hal naga hayo deme waxaan leeyahay aan isku wadno oo rabadaanteena aan soono xaggan ictiraafyada aynu ka guranno oo kolba ka hal maalin baa saddex shay baa la sanaysanayeen bal يعني ها كود بربرة فرحسنا إن الاعتراف دتك نجحنا ده وحلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku sugnay magaalada Burco dadkan waxaa la xiriirinay su'aalo oo rabaanta ku saabsan misana ku saabsan qadiyada Soomaaliland imika haatan waxaan gudagelinaa dadka waraysiyoda in halkan nagala socotaan waxa weeye Burco Media عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga iyo ateen magacaygu waa Deeq Khayre Cabdilaahi Burco Media soo dhawaad oo ku dhawahay aad iyo aad baan ku dhawahay aad baan u mahadsantiin hortay marka hore waan u ducaynayaa inuu ilaahay ka dulqaado abaarta oo ilaahay raxmad shubo oo ilaahay barwaaqo shubo ayaan u ducaynayaa oo niyo sooma oo mid yar iyo mid weynba sooma oo rabadaanta sooma yaa oo khayrka badsada oo ajarka kordhista moogtay oo aad sooma way waxaan ku leeyahay maadaama raban soo galayso ictiraafkana socdo ma isleedahay labadaas way isqabanayaan ma isleedahay labadaasi hortay aad iyo aad sida run ahaantii hortay ictiraafku aad buu inoogu wacan yahay saameyn badan baanu inagu leeyahay kowdhe maadaama bishii rabadaan ay khayrka ahaydna aynu gelayno ictiraafkiina qaar horena la hayo imikana qaar soo gelayo dawaa maasha allah alxamdulilah wey kama isleedahay ma u kaydinaa mise wax isleedahay isku wadno deme waxaan leeyahay aan isku wadno oo rabadaanteennana aan soonno de xaggan ictiraafyada aynu ka guranno oo de kolba dal baa laga guranayaa mid kalena waan leeyahay Somaliland hortay suugaan yar ayaamii ictiraafkii hore ee moogtay ictiraafka aynu helay ayaan suugaana tiriyay waxaan idhi Somaliland waa daacad oo daayinka wade ictiraafa caalamada iyo dalalkii qaarkeedii dadka faraha badan ee farxadayda jecel oo daafaha adduunka iyo xageeba ku nooshi baraad baan مش معد حسب ما soo dhaweeyay Burco Media أيوة دوي ولا لا waxa kale rabaanta soo galaysay وحلي يدي سود ورا والله حسنا ولا فيه دي إلهي بام برينا إنه إلهي رب وشوا بحيث هلا دتك عبارة هايستان بحلو ترى كلنا إن لقوا ترى اعتراف كأد فرحسنا إن الاعتراف دتك نجحنا ده وحلي وريك دي ama burcaawiba waxa kale rabaanta nagu soo footan ما شاء الله وبال barakaysan waa bil bilaha kale ka duwan macnaha khayrkeeda de waxaan xaggan ku soo koobi kara maaha qof kasto islaamana uu og yahay in loo diyaar garoobaa cibaadada macnaha qofka bilaadanka asaga ayaa ku nool cibaadadu inaguma noola inaga ayaa ku nool insha Allah billahi kariim qaar macnaha dhexda marada ka xidha iyaan jecelahay inaan noqono dhammaan ummadda reer Somaliland iyo dhammaan afka luqadda afka Soomaaliga ku hadasha ee Soomaali weynba waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan mid kastaaba mid naftiisa naar ka badbaadsada oo waayii tahay looma baahna bishan oo khaliya inaynu kelmatu laa ilaaha illallah ka dhabayno mar walbaba inay macnaha ahaano dad ilaahooda ku xidhan xusa caabuda sadaqaduna bishan oo kala waa wax wanaagsan macnaha inaad dad masaakiin oo jilicsan baa jira inaad fursadkii aan awoodi karayn haddii aanad waxba qaban karin inaad afkaaga ka soonaato indhaha ka soonto gacmaha ka soonto de anigu intaasaan leeyahay waxay sheegtay walaaleen wad ogtahay imka baraa socda wallaahi waxa weeyaan inta ilaahay wax siiyay waxaan ku sheegayaa aad dadku isku wada mid maaha inta jilicsan inta waxaysata baa wax tari kartaa ilaahay wuu isku keeneegayaa ilaahay muu awoodi kari waayin ka aan waxba haysanin wax siiyo ilaahay muu awoodi kari waayin ilaahay wuxuu ku eegayaa ka jeebkiisu wax ku jiraan walaalaan isku gurmano walaal waa adduunyo waa laba cishay tan waa laga tagayaaye walaal aqalkeena aakhiraan wax iskaga horeysiino marka qof kasto maanta jeebka wax ku haya waa in dadka tabaalaysan ee walaalaheena loo gurmadaa walaal magacaygu waa Cabdilaahi barnaamijkan waan ku dhawahay wallahi walaal bishii waxa ay ku socotaa khayrka badnayd bishii waxaan ku yiri muslimiinta bishii ilaahay ilaana gaar u leh waana gaar biladan gaar wax xisaabinaya runtii waxay ku soo beegantay xilli adag oo abaar wadanka jiraan oo waxaan ku dadku aad u tabaalaysan yihiin marka bishan nin kastaba oo muslina qof kasta oo muslina inuu ka faa'iideysto weeye oo dadka tabaalaysan hoos loo eego oo dadka abaarsan inuu gurmano oo aynu ka faa'iideysano oo maanta bishan sadaqadu wax kasta aad bishan bixisaa wax ku laban laabmaya marka bulshada aad iyo aad baan ugu baraarujinaya bulshadu inay ka qayb qaato bishan Ramadaan oo ay cibaadada ilaashato oo waliba dhalinyaradu ay aad ugu dadaasho bishan inay ilaashadaan ka walaal saas rabadaan tan ma isleedahay rabaanta way ka duwan ها طبعا way ka duwan tahay waayo rabadaantii hore waxay ku soo beegantay xilli barwaaqa laakiin rabadaantan waxay ku soo beegantay xilli abaara oo jiilaala oo aad u daran oo
waliba abaar laba jirsatay ayna hayso ayay ku soo beegantay marka walaal insha Allah ilaahay waxaan rajeynaa ilaahay raxmad khayr qabo inoo shubo waxaan ka leeyahay in la soomo laga faa'iideysto inta bisha Ramadaan magacaygu wax sidaan jeclay waan ku dhawahay walaal Ibrahim Mariya aad iyo aad baan isla weynahay adiga iyo inaga kula socday qaybta farsamada ku jooga aad iyo aad baan isla horta bisha Ramadaan bil barakaysan oo khayr badan waana 12 bilood bisha ugu fadhiga badan leh marka insha Allah ilaahay khayr hanuu gaarsiiyo waxa jira dad badan oo bisha Ramadaan hore inoo soomay oo aan awood yeelana ma xanuun ka reebo ma qaar dhintay oo ingaraansa ay geeri naga reebto maanta farxadda bisha Ramadaan la qaadanin wixii xanuunsanay waxaan leenahay ilaahay inoo caafiyo wixii dhintana ilaahay u naxariisto inaguna dawaan ku xignaay ilaahay ay nooga daba naxariisto insha Allah waxaan fariin u diray horta xil abaareed baa lagu jiraa dadkuna waa isku dhex jira dad masaakiin iyo dad wax haystaba hore waxaan leeyahay ilaahay dadka way nagu eegayaan soo naxariisano inagu hoos aan soo eegno dad baa jira aan waxay ku suxurtan wax ku afraa mid awoodayna inteena dhaantay aynu soo naxariisano qofkeenu wax dheernahay wax tarna insha Allah taala intaan san laga ilaahay nagu naxariisanaya warta xil abaareed baa lagu jiraa waxaan la ictiraafka kor hal nooga harayo inta roobka inoo daayo ictiraafka kor hal nooga harayo marka roobka inoo daayo inoo insha Allah taala jawigeeda dee horta roob la'aan mooyaane dee wax kala maahno waan sugaynaa Ramadaan tan dee ilaahay baan baryaynaa waxaan leenahay ilaahay roob nasiiban leenahay Ramadaan tan waan soo dhaweynaynaa ictiraaf Somaliland waxaan doonaa intan waan yar laakiin hore u qaadnaa baan doonaa sida in ka horeysa waan u rajeynayaa Somaliland hore u socoto intu doono uu fadhiya dad aniga iyo kuwa kale way codeynayaan kuwii soomi jirana waa soomayaan kuwii aan soomi jirna waa dee iska deynayaan ma hadii doonaan ila iyaga aakhiradooda u shaqaysanayeen saas uma noqonaysa hadii intiraafka suuqliga hayna xidhinte Israa'iishu waa yuhuudin kasto ay tahay magaraysa hadhe yelkadeed waskala macaamilayna waana ku faraxsanahay ictiraaf waa kana baahnay laakiin ictiraaf inagama muuqdo barca wata hadde hadda imka maamulkeeda aan lahayn maxaa sameeyay inaad maamulkeeda horta aanu ma haweysto xil iyo waxa ma haweysto laakiin dadka burca u soo jeedo waxaan ka hadlayaa heerade mid kastaaba intuu qabsado ayaanu eegin hargeysno kaas waxa la kabaha 3 cisho la baalashayo waxay kabaha hal maalin baalashay 3 cisho baalashanayaan ma lagu leeyahay kawdhe barbada ka sokaysa weeyaan inaguna 10 jeer marina darwaanta waxaan ka leeyahay waa khayr iyo nimcay wadataa dee loo diyaar garoobo dee aad baan soo dhaweynaa waan leeyahay marxab maashada kulay dee waa qooli waa abaara jiro sicir bararaa jiro dee hawlo kale way iska badan yihiin ictiraafka aad baan soo dhaweynaa dee waxaan ku way fiican dad badan baa ma aqtiin cadawgood soo baxayo kuwaasna maxaa leedahay waxaan leeyahay waxba naga qaadi maysaa ha ko Soomaaliya ugu horeysa